awqaaftii arrimaha islaamka ayaa ah mid uu ku urgelaya howlaha shaqo ee wadaadiyay dhismahan gadaashada ka muuqda ee quruxda badan ee wasaaradda awqaaftu ay dhawaan hirgelisay. kormeerka ayaa ka turjumaya dardargelinta habsami u socodka howlaha shaqo ee hay'adaha dawladda, isla xisaabtanka iyo kor u qaadida adeegyada dawladda ayuu hayso bulshada Soomaaliyeed si loo xaqiijiyo ballanqaadkii xukuumadda ee xoojinta dawlad dhiska. Ra'iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre ayaa ku bogaadiyay madaxda wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka hogaaminta wax ku oolka ee ay ka sameeyeen dhanka horumarinta adeegyada bulshada iyo dib u dhiska kaabayaasha shaqo ee wasaaradda. mudane Xamza Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha dalka ayaa sheegay in shaqadani ay ku timid dadaalada xukuumadda dan qaran ee ku aadan dawlad wanaagga iyo adeeg hufnaanta iyada oo la xoojinayo hay'adaha dawladda si ay u helaan xarumo shaqo oo u qalma shaqaale karti leh. agaasimaha hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sambulis taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka Soomaaliya General Saal Cabdullaahi Cumar oo maalmaha ku sugnaa furmo hore dagaalka deegaanada gobolka Hiiraan isla markaana ay weeliyaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowladda Hirshabelle Cabdi Daar Gure Karar ayaa kormeeray furmaha hore ay ku sug yihiin ciidamada difaaca deegaanka iyo kuwa qaranka ee laga ilaaliyo amniga degmada Moqokoro ee gobolka Hiiraan. goobaha mas'uuliyiintan ay kormeereen waxaa ka mid ah deegaanka Xawagdiid, Gumarre, Ceel Qooxle, Moro Ari iyo waliba deegaano kale kuwaas oo dhammaantood ka mid ah goobaha laga ilaaliyo amniga degmada Moqokoro ee gobolka Hiiraan isla markaana jih ahaan u dhexeeya degmooyinka Aadan Yabaal iyo degmada Moqokoro oo ka kala tirsan gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. agaasimaha hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sambulis iyo waliba taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka Soomaaliya General Saal Cabdullaahi Cumar ayaa ciidamada difaaca deegaanka iyo kuwa qaranka uga mahad celiyay guulaha howlgalladii ugu dambeeyay ka soo hooyeen iyo weliba siday ugu dhabar adeegeen in kooxda khawaarijta argagixisay jab xoogan gaarsiiyaan kana difaacaan degmada Moqokoro iyo weliba deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan oo ay maalmihii ugu dambeeyay soo damaaciyeen kooxda haraadiga khawaarijta argagixisada balse ay jibeen ciidamada difaaca deegaanka iyo kuwa qaranka oo iskaashanaya dambici kooxda khawaarijta argagixisada ahaa inay dib ula wareegaan gacan ku haynta deegaanadii kol hore laga xureeyay kooxda khawaarijta argagixisada. saraakiishan ayaa ciidamada difaaca deegaanka iyo kuwa qaranka ee ku sugan furmo hore dagaalka deegaanada gobolka Hiiraan kula dardaarmay inay si laban halganka dalka looga ciribtirayo haraadiga kooxda khawaarijta argagixisada. kormeerka agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sambulis taliyaha ciidamada lugta xoogga dalka Soomaaliya General Saal Cabdullaahi Cumar iyo waliba xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ee maalmaha ku sugnaa furmaha hore dagaalka deegaanada gobolka Hiiraan ayaa kormeerkooda wuxuu ku soo beegmayaa xilli maalmo ka hor deegaanka Ceel Hareeri cashir xoogan loogu dhigay kooxda khawaarijta argagixisada isla markaana halkaasi jab xoogan ay ku gaarsiiyeen ciidamada difaaca deegaanka iyo kuwa qaranka iskaashanaya haraadiga kooxda khawaarijta argagixisada ee soo damaaciyey deegaanka Ceel Hareeri oo ku dhow xadka kala qaybiya gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. waxaana weli saraakiishan ay wadaan kormeerka ay ku tagayaan furmaha hore difaaca deegaanada gobolka Hiiraan ay ku sugan yihiin ciidamada difaaca deegaanka iyo kuwa qaranka dagaalka kula jira haraadiga kooxda khawaarijta argagixisada. Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse, warbaahinta qaranka, furmaha hore dagaalka deegaanada gobolka Hiiraan.